ma ogtahay inay kuwan yihiin masaska ugu sunta badan dunida kuwaasoo aanad weligaa arag? kow, inland taipan. maska waxaa loo yaqaanaa inland taipan wuxuu leeyahay sunta ugu xooga badan la diiwaan geliyo abid intuu bani aadanku jiray. waxaa laga helaa dalka Australia. halkiisa qaniyana waxay wadataa sun ku filan inay disho in ka badan 100 qof oo qaangaadha. marka uu kugu dhufto qaniyada waxaa laga yaabaa inaad haysato daqiiqado yaroo kooban oo keliya si aad u badbaadiso naftaada. 2, eastern brown snake. maskani waa mid ka sababa dhimashada bani aadamka ee ugu badan gudaha dalka Australia marka la eego masaska kale asaagiisa ah. suntiisu waxay halkii mar weerartaa dhiigga iyo habdhiska neerfaha wuxuuna ku qaniini karaa ka hor xitaa inta aanad adigu arag inuu dhaqaaqayo amba uu nool yahay. 3, black mamba. kani waa mid ka mid ah masaska ugu dhaqsaha badan dunida uguna caansan. xitaa waxaan qirayaa inaad hore u maqashay. wuxuuna jari karaa xawaaro dhan 12 ilaa 16 mayl saacadiiba. marka uu wax weerarayana hal mar ma qaniino ee marar badan ayuu qaniinaa oo ku dhuftaa sunta. qaniyada maskana waa mid 100% dilaa. haddii aanad helin daawo ka hortagta suntana dhimashadu waxay ku dhici kartaa wax ka yar 1 saac oo keliya. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo midkii ayaa kuugu la yaab badnaa qaybta commentiga ee hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebook-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.